Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkayga Ogaalka Dunida. Xiisada cusub waxa ay bilaabatay 22-kii Abriil sanadii 2025 kadib markii weerar argagixiso lagu qaaday magaalada dalxiiska ah ee Pahalgam ee ku taalla gobolka Kashmir ee ay Hindiya maamusho. Weerarkaasi waxa uu ku dhintay 26 dalxiis ah, waxaana lagu eedeeyay kooxaha Jaish-e-Mohammed oo fadhigoodu yahay gudaha Bakistaan. Dowladda Hindiya waxa ay si toos ah u sheegtay in Bakistaan ay garab siinayso kooxaha weerarka fuliyay, taas oo Islamabad si adag u beenaysay. Howlgalkii Hindiya Howlgalka Sindoorka 6dii May, ciidamada cirka ee Hindiya waxa ay bilaabeen howlgal ballaaran oo ay ugu magac dareen Howlgalka Sindoorka, kaas oo lagu weeraray 9 bartilmaameed oo ku yaala gudaha Bakistaan iyo qaybta Bakistaan ee Kashmir. Weerarka Hindiya lagu helay waxa ay sheegeen in howlgalka lagu dilay Abdul Rauf Ashraf, oo uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan Jaish-e-Mohammed, isla markaana lala xiriiray afduubkii diyaaraddii India Airlines ee 1999 iyo dilkii weriye Mareykan ah ee Dayal Beral 2002. Jawaabta Bakistaan waxa ay si degdeg ah uga falcelisay duqeymo, iyada oo sheegtay in ay soo riday 5 diyaaradood oo dagaal ah oo Hindi ah iyo sidoo kale 25 diyaaradood oo aanan duuliye lahayn drones ah oo ku sugnaa hawada magaalooyinka Karachi iyo Lahore, waxayna sidoo kale bilaabeen duqeymo la beegsanayo saldhig militari oo ku yaala xadka Kashmir ee Hindiya maamusho. Dowladda Bakistaan waxa ay sheegtay in aysan aqbali doonin duqeymo hor leh, isla markaana ay diyaar u tahay inay weerar buuxda ku qaado wakhti iyo goob ay iyadu doorato. Saameynta Riyadh iyo dhaqaalaha. Ugu yaraan 35 qof oo Riyadh ah ayaa dhintay, boqolaal kalena waa la dhaawacay. Kumanaan qoys ayaa la barakiciyay guryahooda ay ku yaala deegaanka u dhow xadka. Duulimaadyada diyaaradda ayaa la hakiyay, dugsiyada la xiray iyo tartanka kiriketka weyn ee IPL oo dib loo dhigay ilaa bisha September. Suuqyada saamiyada ee labada dal waxa uu hoos u dhacay, waxaana jira cabsi laga qabo in ay arrintu saameyn weyn dhaqaale oo baahsan yeelato. Cabsida dagaalka nukliyeerka. Hindiya iyo Bakistaan labaduba waa dalal haysta hubka nukliyeerka ah, taas oo keentay cabsi weyn oo laga qabo in xiisaddan ay isku beddesho dagaal nukliyeer haddii aanan si degdeg ah loo dejin. Dowlado ay ka mid yihiin Mareykanka, Ukraine, Shiinaha iyo Midowga Yurub ayaa bilaabay wadaxaajood degdeg ah, iyaga oo labada dhinacba ku eedeynaya in ay joojiyaan dagaalka oo miiska wadahadal lagu laabto. Xaaladda hadda 9kii May 2025, duqeymo cirka ayaa weli socday labada dal, waxa ayna kordhiyeen ciidamada ku sugnaa xadka Kashmir. Bakistaan waxa ay sheegtay in howlgallo cusub ay qaadayso haddii Hindiya aysan joojinin weerarada. Caalamka oo dhan waxa uu ku jiraa feejignaan buuxda. Xiisaddu waxa ay Bakistaan iyo Hindiya ayaa heer aad u khatar badan
waxaana la saadaalinayaa in haddii aanan si degdeg ah xal loo helin, dagaal weyn uu qarxi karo, mid waxyeello u leh gobolka, dadka Riyadh iyo halistoodana caalamka oo dhan. Fadlan haddii aad nala soo gaartay muuqaalka dhammaadkiisa, hanagu iloowin inaad subscribe inoo saarto, like inoo saarto, ugu dambeyn aad furto si waxyaabo cusub ay kuu soo gaaraan. Waa inoo iyo sheeko kale xiise leh. Goodbye.